Carruurta yaryarka ah haddaysan hurdaynin ama aysan cuntaynaynin waa inay ciyaarayaan. Ilaahay carruurta wuxuu siiyey energy ka badan ka dadka waaweyn. Wuxuu kaloo siiyey curiosity ama wax inay xiiseeyaan oo wax walba inay ku cusuban maskaxdooda ku cusuban ay isku dayaan inay tijaabiyaan. Waxaa la ogaaday in inta ay ciyaarta uu cunugu ciyaarayo ka hormarsan tahay carruurta kale, inay saadaal u tahay in waxbarashadiisana suu uga meel keeni doono ay uga hormarsanaan karto. Tusaale ahaan, cunug 3 sano jira oo aan samayn karin wax carruurta kale loogu talagalay 3 sano ay sameeyaan in terms of ciyaar ahaantaas wax ay ku ciyaari karaan iyo heerka ay gaarsiisantahay aan gaarsiisnayn, waxay tusaysaa maskaxdiisa inaan waxan la barin oo maadaama carruurtu ay ciyaar ku barato wax ku barato maskaxdu ku kobcdo ay maskaxdiisa aynan kobcin. Taasi waxay keenaysaa cunugaasi hata markuu weynaado haddii aan laga dhexgelin oo cunugaasi aan wax la barin waqtigu uu waxbarasho gaarayo inuu cunugaasi maaragta wax ilmaha kale uu ka dambeynayo. Midda labaad, ciyaartu waxay faa'iido u tahay jirdhiska oo cunugu mar walba uu ciyaarayo noocyo ka duwan, banooni ha ciyaaro, waxyaalahan boodboodka ha ciyaaro, jirkiisa ay adkaanaya, xubnihiisa ayaa xirfado baranhaya, waxyaalo fara badan oo spatial awareness ama agagaarkiisa balanskii suu isku balance gareeyo waxaasoo dhan ayuu baranaya, jumpingkii, boodboodkii, maskaxdiisa ay waxaan oo dhan ka dhisaysaa. Ciyaartu noocyada kala duwan waxay barahayaan social sida ilmaha loola xiriiro dadka kale, yacni bulshada sida loola tacaali lahaa. Cunug kaloo la ciyaarayo wuxuu baranhayaa sidii wax loo wada qabsan lahaa, sida ilmaha loola hadli lahaa, loola xiriiri lahaa, dadka waaweyn ee kale loola xiriiri lahaa. Waxay ciyaaraha qaarkood ilmaha barahayaan sida yacni emotionka ama dareenka loo controlo. Ciyaaraha qaarkood waa ogtihiin ama cunugu wuu guuleysan karaa ama wuu ku khasaari karaa. Taasi cunugu wuxuu dareemayaa ama farxad ama yacni murugo ayuu dareemayaa. Dareenkaasi cunugu inuu controlo oo waxaan u ogaaday inay ciyaar tahay oo emotionkiisa uu controlay ayay ciyaaruhu bari karaan. Sidaas la mida stresska iyo waxyaalaha yacni murugada ah iyo isku buuqa ayay iyadana u fududaynaysaa maadaama cunugan uu ciyaarayo oo ku mashquulayo hawshan uu sameynayo. Waxaasi waxay ka dhisaysaa jirkiisa inay stresskii bay controleysaa ay yaraynaysaa. Cunugu wuxuu ku baranhayaa caqabadaha sida looga gudbo, waxbuu solve garaynhayaa, waxbuu isku hagaajinhayaa, caqabad markay hor imaato xalinhayaa. Waxaasoo dhan waxay baraysaa maaragta cunugu inuu maaragta caqabada sida looga gudbi lahaa. Ilmaha yaryar qaarkood make believe waxa la dhahaa wixii inay isku dayaan waxyaalo alaabe oo kale waxyaalaha kale wax aynan markaa gaarin inay oo nolosha dadka markay weynaadaan oo kale inay isku dayaan inay maaragtay ay pretend gareeyaan ama isku dayaan inay noocaas oo kale iska dhigaan. Taana waxay usii fududaynaysaa ama cunugii ay usii dhisaysaa noloshiisa iyo mustaqbalka dambe cunugii markuu weynaado. Haddaba walaalayaal, carruurtu inta ay kobcayso maskaxdooduna ay kobcayso ciyaarta ay ciyaari karaana way sii horumaraysaa. Horumarka ciyaarta waxay tusaysaa maskaxdooda inay horumartay. Maskaxdana ma horumarayso haddii aan maaragtay ciyaaraha iyo wixii stimulationka loo sameynayo maskaxda la kobcinaya ayn kobcin oo ay ka mid tahay yacni carruurta ciyaar. Maadaama aan sheegnay carruurtu inay wax ku bartaan waxaan ay tijaabinayaan ay ku tijaabinayaan through wax walba ay tijaabinayaan ama ciyaarta ay ku sameeyaan waxyaalaha qaarkood ciyaarta ay ku sameynayaan. Tusaale ahaan bombolooyin noocyo kala duwan baad u samaysay, waxyaalo isku hagaajinhayaa, gaari buu ka sameynhayaa, gaariga wuu wadanhayaa, meel buu tagayaa, meeshan kale uu ka soo boodahayaa. Waxaasoo dhan qayb ka mid a maskaxdiisa ay maaragtay kobcinaysaa. Tusaale ahaan aan soo qaadan cunugu markuu dhasho 1 bil, 2 bil, 3 bilood waqtiyada uu joogo markaasuu adduunka kusoo biiray. Maskaxdii wax badan maaragta waa immature oo ma garanayso. Canuga maalmaha oo bilaha ugu hore wuxuu baranhayaa isbedelka shanqar walba uu maqlo. That's why ilmaha noogu soo gadgadno waxyaalahan
maaragtay laga shanqariyo si shanqarta ay u dareemaan. Shanqartay kala fahmahayaan, waxay kala fahmahayaan kalarada kala duwan inuu waxan hal wax una ahayn kalarada ay kala duwanaan. Demo cunugan marka bilooyin uu gaaro wuxuu kala dareemayaa shanqarta markay yarto hadalka waa hadalkii hooyada, kaasi waa danger, yani waa khatar buu igay wixii oo dhan si ay u kala fahmaan. Cunug markuu sii weynaado sanad iyo wixii ka dambe uu sii gaaro, ciyaartiisa way sii bedelaysaa, maskaxdiisana way sii kobcaysaa. Anaga marka waalid ahaan maxaana laga rabaa? Bulsho ahaan walaalayaal saad ogtihiinba, waalidiinteeni ama anaga qaarkeen waxaa laga yaabaa inaan kusoo kornay meelo maaragtay ama magaalooyin dhulku iska bambanaana oo banaanka ilmaha ku ciyaari jireen, meel walba ku ordi jireen. Hadda se khaasatan magaalooyinka waaweyn iyo adduunkii oo isa sii bedelahaya, dhulkii oo yaraanhaya, ilmihii meel ay ku ciyaaraan apartments baa la degan yahay, meel ay ku ciyaaraan marka aad bay u yaraatay. Taasi waxay keentay marka waalidiintii maadaama ayaga koritaankoodii ay si fudud kusoo koreen oo wuxuu iska fududaa oo dabiici uu iska ahaa, caruurtiina meel lagu celcelinhayo, caruurtana ay u baahan yihiin meel ay ku ciyaaraan, ay ku waxayaan, ay ku mashquulaan. Taasi waxay keentay marka in cunugii uu ku mashquulo kaliya TV iyo telefoon oo maskaxdiisi iyo indhihiisi dhib u keenayo. Marka waalidiinta waxaa lagu boorinhayaa noocyo kala duwan oo maaragtay ciyaaraha kala jira ama waxaan ilmaha ay ku dheeli karaan. Kuwa indhooskaad ku samayn kartaa oo gurigaada dhexdiisaad ugu soo gadi kartaa boombolooyin kala duwan. Boombolooyinku way kala yihiin kuwa maaragtay ilmihii kolba da'da ay joogaan oo maskaxda u dhisayo wixii kobcinhayaa jira. Waqtiyada qaarkood ilmaha waxaa loo baahan yahay in la bixiyo banaanka la geeyo meel ay ku soo ciyaaraan, ay tagaan meel ay ordi karaan oo jirkooda ay maaragtay uu ku dhismayo. Waxaasoo dhan waxaa la rabaa waalid ahaan sida aad oga fikirto ilmaha, sidaad cuntada u siiso, sida ay maaragtay dugsiga iskuulka u aadaan, sida aad ugu qabayso inaad oga fikirto ilmahan ayagana sida lagu mashquulin lahaa oo mashquulin kale ma ahe wax faa'iido u keenayo ay maaragtay maskaxdooda ay kobacooda uga qayb qaadan lahayd.